السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان dadweynaha ku xiran karan Alta 244 waxaan ka diyaarinay warbixin ku saabsan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxaana warbixintaasi inoo soo diyaariyay Yaasir Yaasiin Cabdi Yaasir Sona. kulan gelinkii hore ee saaka ku bilowday qayle iyo muran ayaa daqiiqado kooban kalsoonida lagala laabtay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu codeysay inuu xilka ka dago 117 xildhibaan 8 ayaa la diiday wax ka aamusayna meesan jirin gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa codsi u diray arrin ka dhana arrinta Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre madaxweynaha dowladda federaalka asagoo sheegay inuu soo magacaabo Ra'iisul Wasaare ku meel gaar ah dalka Soomaaliya ayaa wuxuu soo magacaabay Ra'iisul Wasaare ku meel gaar ah asagoo ayadana loo soo magacaabay Ra'iisul Wasaare ku meel gaar ah Mahdi Guuleed Ra'iisul Wasaarihii hore dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa arrinta maanta ka dhacday hoolka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ku tilmaamay mid aan sharci ahayn asagoo sheegay inuusan dalka gelin doonin muran siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni intaba asagoo sheegay inuu xilka sidaas aan loo marin habraaci saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu tiro shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed dalka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego